maamulka degmada howlwadaag ee gobolka banaadirna waxa ay bilaabeen howlo lagu dayactirayo wadada dheer ee wadnaha iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadirna ay kormeer ku tageen dayactirka ka socda wadadaasi. warbixintaasi Ifraax Sahal Maxamed ayaa faahfaahinaysa. maamulka degmada howlwadaag ayaa maanta ololo dib u dayactir ah ka bilaabay isgoyska bakaaraha ee degmada howlwadaag. ololaha dib u dayactirka ee maanta laga bilaabay isgoyska bakaaraha ayaa qayb ka ah mashruuc lagu horumarinayo bilicda gobolka banaadir. gudoomiyaha degmada howlwadaag Ciise Xaaji Maxamed ayaa sheegay inay ka go'an tahay wax ka qabashada baahiyaha dadweynaha. bulshada ku nool degmada howlwadaag ayuu gudoomiyaha ka codsaday inay ka qayb qaataan bilic celinta degmada. waa u jeedin maanta waxa ka socda isgoyska suuqa bakaaraha waa howlihii dardargelinta nadaafadda iyo dhismaha wadooyinka waa saddex gacleyntii mashruucii loogu magac daray ee gobolka banaadir waxaana ka wadnaa degmada howlwadaag. bulshada ku dhaqan degmada howlwadaagna dhammaantood waxaan uga baaqaynaa inay ka qayb qaataan barnaamijkan ololaha nadaafadeed iyo in wadooyinka la furo. gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee gobolka banaadir Maxamed Axmed Diiriye ayaa tilmaamay in maamulka gobolka banaadir ay ka go'an tahay inuu dib u soo celiyo bilicdii caasimadda iyadoona gudoomiyaha gobolka banaadir uu ku dhawaaqay mashruuc dib loogu soo celinayo bilicda gobolka banaadir. maamulka gobolka banaadir waxaa ka go'an inuu dardar geliyo oo uu soo celiyo oo uu aad iyo aad uga qayb qaato. waxaana wakiil uga ah maamulka sare maamulada degmooyinka ama guddoomiyaasha degmooyinka. marka guddoomiyaha degmada howlwadaag aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa. guddoomiyaha gobolka saaku safray shir dheer uu xalal la yeeshay guddoomiyaasha degmooyinka oo muddo dheer qaatay. waxa laga wada hadlayana waxay ahayd magaaladan bilicdeedii iyo sidii loo howlgeli lahaa shacabka ku nool ayada oo ay iskaashanayaan maamulka gobolka banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed ee gobolka banaadir degan. Ifraax Sahal Maxamed, SNTV, Muqdisho.